السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كان مختصر كأي نسي وديدونا درس جانونا مانتا وحو كبلاب ميا آيات الشنية تضباطنا دي سورة التوبة، وحنا كنا مان دونا آيات النمبر كيدا ويهلا بيا سقاشن سورة التوبة، وانا مقردي سيداداد جزء كي تبناد كبلاب ميا وعلمو. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم وحكم ذكوا منافقين من عاهد الله cid la kula ballantay alle lain aataana haddii auna siiyo alle min fadlihi dheeraadkiisa lanasadaqanna dheeraadkiisa haddii wax naga siiyo lanasadaqanna walle inaanu sadaqadaysan walanakunanna oon ka mid ahaanayno min asaalixiina kuwa markaas saalixiinta ee wanaagsan. falamaa goortii aataahum alla uu siiyey min fadlihi dheeraadkiisa au ka siiyey bakhiluu bihi way ku bakhayleen watawallow way jeesteen walxaal hum iyagoo mucriduuna ay yihiin markaas kuwa markaa jeesanaya oo xaqa markaas ka jeesanaya. aayadan marka hore haddaynu xagga luuqada wax ka eegno waxa ku sugan laamkaa hore ee lain aataana ah, culimmadu waxay idhahdaan waa laam qasam. laamka labaad ee ah lanasadaqanna waa jawaabu qasamkii, yani laamka kalena waa jawaabu shard. marka culimmadu waxay idhaahdaan haddii qasamka ay dhaarta hadday ka daba dhacdo jawaabtii dhaarta iyo jawaabtii shardiga, hal jawaab ayaa ku filan. halkaa jawaabna midkee loo celinaya markaa? qaacidada usuuliyiintu ay sheegaan waxa weeye labada haddii ay kulmaan jawaabu qasam iyo jawaabu shard, labada ka hore ayaa dhaarta loo celinaya, halkana dhaarta ayaa soo hormartay. waxaynu u tilmaamayno kalimaadka kooban ee naxwaha ina waxa weeyaan inaan walaalaha ardayda aan ku baraarujino luuqadu inay muhiim tahay. xagga sabab nusuulka aayaadkan waxaa loo sheegaa ama aayadan sabab nusuulo ka laba ayaan sheegi, mid aan sugnayn iyo mid sugan. haddaan ku horeeta aan sugnayn si loogu baraarugo, mufasiriintu badankooda kutubta waxaa ku qoran sabab nusuulkan oy leeyihiin markaa saxaabiga radiallahu canhu la yidhaahdo thaclaba ibnu xaatib ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka dalbay inuu ugu daceeyo inuu ilaahay maal badan oo ku arsaaqo. markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi: wayxaka yaa thaclaba qaliilun tuaddii shukrahu khayrun min kathiirin laa tuaddii shukrah. thaclabow waxaa kuu khayr badan wax yaroo aada awoodda inaad ka mahadnaqdo ayaa kaaga khayr badan wax badanood awoodin inaad ka mahadnaqdo ood yacni waajibkiisa aadna gudanin. markaasaa uu ku celceliyey fa alaxa fi dalab. markaasaa rasuulku uu ugu duceeyey ilaahayna subxaanahu watacaala maal fara badan ayuu siiyey. waa si ay riwaayadu sheegayso, markaan dhameeyaan sheegi doonaa markaas inay sugan tahay iyo inayna sugnayn. marka waxay tilmaamaysaa riwaayadu, haddaynu in yar wax sii tilmaano, in uu ilaahay maal fara badan uu siiyey, madiinuu deganaa, markaas arigiibaa batay, markaasuu madiino duleedkooda u guuray, salaadihii buu ka tegay, duhurkii iyo casarkuu soo gaari jiray, haddana uu sii fogaaday, salaada jimcuhu iman jiray. haddana waxaa soo degtay aayadda zakada, markaasaa uu rasuulku u diray saxaabo kasoo qaatay zakadii. markaasuu yihi: war maxaad weydiinaysiin? ma jizyaad weydiinaysiin? kuwa dadka aan muslimiintahan jizyada laga qaadayay, ama ta aad weydiinaysiin waa jizyada walaasheed. rasuulka marka ay kusoo noqdeen loo sheegay, markaasaa niman ay isaga qaraabayn oo rasuulka agtiisa joogaan ninkii u tegay oo ku yidhi: qur-aan baa kugu soo degay. markaasa riwaayaddu waxay leedahay rasuulku u yimiday, rasuulku wuxuu yidhi: waa la ii diiday inaan ka aqbalo, kamuu yeelin. abubakar buu yidhi markaa zakadii iga qaad.
abuubakarna wuxuu rasuulku ta'awdiida qaadi maayo, cumarna sidoo kale, cismaanna sidoo kale, waqtiga cismaan buu dhintay. haddaba riwaayadaasi walaalayaal ma sugna, sanad ahaanna uma sugna. culimaduna markaas aad bay uga hadleen, oo imaam albani silsila daciifa ayuu kaga hadlay. sidoo kale culimada muxadisiintu aad bay uga hadleen, sanadkeedu waa daciif, matni ahaanna waa sax maaha oo waxay ka hor imanaysaa aayado qur-aana. waayo alla subxaanahu watacaala qofka dembi shirki gala ayuu u dhaafa hadduu ka toobad keeno. rasuulkana waxa weeyaan hadyigiisu wuxuu ahaa in qofkii ilaahay ka toobad keena, yani toobadu inoo furanta qofku inuuna dhimanin. saa ogeed riwaayadaas riwaayad sugan maaha. laakiin ma jiraa sabab nusuul sax ayay culimadu isweydiiyaan? haa, wuu jiraa. ka saxdii waxaa ka sugan ibnu mascuud radiallahu canhu inuu yidhi munaafaqa calaamadiisu waa 3. idaa xadatha kadab, yani haddii au sheekeynayo been buu sheegaa. waidaa wacad akhlaf, haddii au ballan galana uu buriyaa. waidaa caahada, haddii au ballan adag dadka la galana qadar buu markaa la yimaadaa. markaas ibnu mascuud wuxuu leeyahy faanzala allahu bitasdiiqi dalika, qowlkaa rumayntiisa ilaahay wuxuu soo dejiyey waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi ilaa aakhir alaaya. haddaba haddaynu ku noqono duruusteena usuul tafsiirka ah, kani waa sabab nusuul sariixa weeye. haddaba culimada qaarkood waxay leeyihin usuuliyiintu sabab nusuulka sariixii mararka qaarkood waxa suuragal inuu sabab nusuul u noqon karin aayadda. haddii sabab nusuulku auna sariix ahayna, yani munaasabooyin kala duwan kasoo hadlay, auna toos u sheegayna, mararka qaarkood wuu noqon karaa sabab nusuul saxa. haddaba alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waminhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man caahada allaha, cid kula ballantay alle lain aataana alla hadduuna siiyo min fadlihi dheeraadkiisa aw wax naga siiyo lanasadaqana waan sadaqadaysanaynaa walanakuunana waxaan ka mid ahaanaynaa min asaalixiina kuwan wanaagsan. falamaa goortii aataahum au siiye alle min fadlihi dheeraadkiisa au ka siiye bakhiluu bihi way ku bakhayleen wixii au siiyey. watawallow way jeesteen walxaal hum iyagu mucriduuna ayiin kuwii jeestay. alle wuxuu leeyahy fa acqabahum wuxuu uga dambeysiiyey alle nifaaq ayuu uga dambeysiiyey. yani alla caaqibadoodii wuxuu ka yeelay nifaaq ku sugan qalbigooda. ilaa yowmi alqiyaama faacqabahum wuxuu uga dambeysiiyey nifaaq ayuu uga dambeysiiyey alla ku sugan fii quluubihim quluubtooda ilaa yowmi yalqownahu, ilaa maalinta ay la kulmayaan ee maalinka qiyaame. bimaa akhlafuu ay ballan furyadooda sababteeda ayuu ilaahay subxaanahu watacaala nifaaq ugu dambeysiiyey. bimaa akhlafu llaha, ballan furyadooda darteed ay ilaahay ku ballan furayaan. maa wacaduuhu, waxay alle kula ballameen. wabimaa kaanuu, iyo kii sababtiisa ay ahaayeen yakdibuuna kuwii beeniye alle xaqiisa. alle wuxuu markaas kitaabka alle iyo rasuulkiisa beeniya. alle wuxuu leeyahy alam yaclamuu miyayna ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu ogyahay sirahum waxay qarsanayaan, wanajwaahum iyo waxay ku faqayaan. ilaahay wax calooshooda ku jira iyo waxay hoos ku sheegayana ku faqayaan miyayna ogeyn inuuna ogeyn. wa ana allaha allana callaamu lghuyuub, inuu yahay alla subxaanahu watacaala wax walloo qarsoonkii og. alladiina kuwa yalmizuuna ku ceebeeya almutawiciina, kuwa mutawiciinta ah, min almu'miniina ee mu'miniinta ah, yani kuwa ku tatawuca mu'miniinta ka mid ah, fi sadaqaati sadaqaadka dhexdooda wax bixiya. iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aanan helaynin ilaa juhdahum dadaalkooda iyo taagtooda maahine, fayaskharuuna way ku dheeldheenayaan, way ku jeesjeesayaan minhum iyaga xaggooda. sakhira allaahu, ilaahay ayaa iyagana ku jeesjeesi. fasakhira allaahu minhum, ilaahay baa xaggooda iyagana ku jeesjeesi. walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliima wa xanuujiya. halkan waxaa muhiim insha allahu tacala si kooban inaynu tilmaano. riwaayaad aada u fara badan ayaa ka sugan. riwaayaadka fara badan ay mufasiriintu tilmaamaan sabab nusuulka aayadan. qaarna waa saxiix, qaarna markaas maaha saxiix. haddaba
riwaayadku marka aada iyo aad ayay u fara badan yihiin. riwaayadaha markaa waxay tilmaamayaan qaarkood sida riwaayadda Muslim ka sugan in markaa ay tahay nin oo u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam. marka nin uun baa layidhi magacooda lama sheegin. riwaayadaha qaarkood magaca sheego cabdiraxmaan ibnu coof ninka wax badan bixiyey sheegay way jiraa, ka wax yar bixiyana magacooda markaa tilmaamay. laakiin haddaynu soo qaadno ka mubhamka ah, nin ayaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam. qaarkood markaa magacaabayaan, laakiin mubhamka ayaa habboon markaa in la sheego. marka ibnu mascuud ayaa markaa wuxuu yidhi waxaan ahayn kuwa soo qaado oo soo xambaara sadaqaadka dhabarkeyga. marka nin baa rasuulka u yimiday, markaasuu sadaqadaystay wax fara badan. markaasay dhahan kuwa munaafiqiintii ninkaasi waa istusnimu waxa u bixinaya. wajaa rajulu nin kalina uu yimiday, markaasuu sadaqadaystay saac, yacni saac buu sadaqadaystay. markaasay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala kan waxa uu sadaqadaystay ilaahay qani ayuu ka yahay. markaa sabab nusuulyada ayaa markaa loo sheegaa, laakiin riwaayadaha qaarkoodna waxay tilmaamayaan qofka sadaqaysta magaciisa, qaarna markaas si yacni mubham oo la garan. marka haddii aynu ku daysano in nina wax badan sadaqadaystay, nina uu saaq sadaqaystay, saasa marka habboon. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala istakfir lahum, u dambi dhaaf dalab, ow laa tastakfir lahum, ama u dambi dhaaf dalbin. yacni istakfir lahum haddaad u dambi dhaaf dalabto, ow laa tastakfir lahum, ama haddaad u dambi dhaaf dalbi weydo. in tastakfir haddaad u dambi dhaaf dalabto lahum iyaga 70 maratan 70 jeer, falan yakfir allaahu lahum, ilaahay u dambi dhaafi maayo. istakfir lahum, u dambi dhaaf dalab, ow laa tastakfir lahum, ama ha u dambi dhaaf dalbin. in tastakfir lahum haddaad rasuul allo u dambi dhaaf dalabto 70 maratin 70 jeer, falan yakfir allaahu lahum, ilaahay u dambi dhaafi maayo. istakfir lahum, u dalab dambi dhaaf rasuul allow, ow laa tastakfir lahum, ama ha u dambi dhaaf dalbin kuwa munaafiqiinta ah. in tastakfir lahum haddaad u dambi dhaaf dalabto 70 maratan 70 jeer, falan yakfir allaahu lahum, ilaahay u dambi dhaafi maayo. daalika kaasina waxa weeyaan aan ilaahay uga aqbalayn dambi dhaafkooda, oonu dembigooda u dhaafayn, biannahum iyagu sababteedu waxa weeyaan biannahum kafaruu, inay gaaloobeen sababteeda weeye. daalika kaasi yacni inaan dembigooda loo dhaafayn waxay ku mutaysteen biannahum iyagu kafaruu, inay ku gaaloobeen billaahi alle wa rasuulihi iyo rasuulkiisa. wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka alfaasiqiina daacadda alle ka baxay. farixa waxay ku farxeen almukhallafuuna kuwii gadaal lagaga tegay, bimaqcadihim fadhigoodii bay ku farxeen, khilaafa rasuulillaahi ay khilaafeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam. wakarihuu waxay kahdeen oo waxay naceen an yujaahiduu inay ku jihaadaan oo ilaahay jidkiisa ku jihaadaan. wakarihuu waxay naceen an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim maalkooda, wa anfusihim iyo nafahooda, fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa. wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina fi lxari kulaylka dhexdiisa, yacni waa waqti kulul ee ha bixina bay yidhaahdeen. qul waxaad ku tidhaahdaa rasuul allow naaru jahannama naarta jahannama ashaddu daran xaran xagga kulaylka. jahannama ayaa ka kulaylkani markaas ay ka sheekeynayaan. low kaanuu yafqahuun, hadday yihiin kuwo markaas wax fahmaya. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay falyadxakuu ha qoslaan qaliilan wax yar, walyabkuu ha ooyaan kathiiran in fara badan. jazaa'an ay juzuu waxa lagu abaalmariyay jazaa'an abaalmar bimaa kaanuu yaksibuun, ay bisababi maa kii sababtiisa yaksibuuna ay shaqaysanayeen. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fain rajacaka allaahu, ilaahay hadduu kugu celiyo. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay hadduu alla subxaanahu watacaala fain rajacaka allaahu, alla haddii markaa uu kugu celiyo ilaa daa'ifatin koox minhum iyaga ka mida, fasta'danuuka oy kaa idin dalbaan lilkhuruuji bixitaanka jihaadka loo baxo, dagaal loo baxo dartii, faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan
maciya macayga la jirkayga abadan weligiin walan tuqaatiluu dagaalamina maysaan maciya la jirkayga caduwan cadow la dagaalami maysaan inakum idinkum radiitum waxaad raalli ku noqoteen bilqucuudi fadhiisi iyo hadhitaan ayaad ku raalli noqoteen awala maratin markii hore faqcuduu fadhiya la fadhiya maca alkhaalifiina kuwa hadhay. marka aayaadkani waxay soo degayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu kasoo noqday tabuuk. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy haddii ilaahay uu kugu soo celiyo rasuul allow qeyb ka mida kuwa munaafiqiintii oo munaafiqnimadeedu ay thaabit tahay rasuulka waa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam oy kaa dalbaan inay ku raacaan oy qaswo kale ay ku raacaan waxaad ku tidhaahdaa anigay raaci maysaan kuwiina munaafiqiintihi jihaad dhinac aniga aad ila jihaadaysayn ma jiro weligiin. taasina waxay cuquubo u tahay oo digniin uga tahay yacni caqiidadooda faasidka ah ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo inay marka hore ay ghaswatu tabuuk ay ka hadheen. sida awgeed buu leeyahay alla subxaanahu watacaala kuwa hadhay ee sida dadka xanuunsanaya asxaabi cadaarka iyo dumarka iyo caruurta kuwa markaa la jooga. alla wuxuu leeyahay fain rajacaka allaahu ilaahay haddii uu kugu celiyo ilaa daa'ifatin waxa uu kugu celiyo minhum munaafiqiinta ka mida oo nifaaqooda oo sugan yahu thaabit rasuulka waa loo sheegaye fasta'danuuka ay kaa idin dalbaan lilkhuruuji inay dagaal dartii u baxaan faqul waxaad ku tiraa lan takhrujuu bixi maysaan dagaal la dagaalamo macayga yani aniga la jirkayga abadan weligiin walan tuqaatiluu dagaalamina maysaan maciya aniga la jirkayga caduwan cadow la dagaalami maysaan adoo idinku idinla jiraan inakum idinkum radiitum waxaad raalli ku noqoteen bilqucuudi fadhiisi iyo hadhitaan ayaad awala maratin markii hore raalli ku noqoteen ghaswa tabuuk ayaad ka hadheen faqcuduu la fadhiya maca alkhaalifiina kuwa hadhay. halkana waxaa soogunusuul ayaa aayaddan soo socota loo sheegaa markii uu dhintay cabdilaahi ibni salool ayaa wiilkiisii cabdilaahi la odhan jiro saxaabi wanaagsan ahaa ayaa rasuulka oo yimid markaa qisaasna waxay ku sugan tahay bukhaari. markaasuu yiri rasuulkii ilaahayow khamiiskaaga kafan adiga aabahay ayaa dhintay marka khamiiskaaga sii kafan aan uga dhigo salaadana kaali oo ku tuko iraac. rasuulku markaa wiilka isagoo qadiranaya ayuu ka yeelay. markii jinaasadii uu isku taagay horta khamiisku u dhiibay oo lagu kanfay jinaasadii markuu isku taagay ayuu Cumar radiyallahu anhu soo qabtay rasuulka. markaasuu yiri ku rasuul allahuma munaafiqi ka iyo ka sameeyay ayaad markaa ku tukani. markaas rasuulku yiri Cumar idaa oo iska kay dhaaf ilaahay ayaa i dooransiiyay wuxuu yiri istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. ilaahay baa i dooransiiyo khiyaar baa la siiyo u dambi dhaaf ama u dambi dhaafin baa la yiri. marka Cumar yani waxa weeyaan uu la sii dooday rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yiri marka Cumar aayadana markaa soo degtay. Cumar wuxuu yiri marka waxaan la yaabay jur'adaydii marka alla wuxuu leeyahay markaas walaa tusalli ha ku tukani rasuul allow calaa axadin minhum mid ka mid a munaafiqiinta maata oo dhintay abadan weligaa walaa taqum hana iskortaagin calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa innahum munaafiqiintu kafaruu billaahi ilaahay bay ku gaaloobeen warasuulihi rasuulkiisa wamaatuu waxay dhinteen wahum walxaal hum iyagu faasiquun ay yihiin kuwa markaa faasiqiin marka rasuulku intaa wixii ka dambeysay wax munaafiqa kuma tukan. alla wuxuu leeyahay walaa tucjibka yayna ku cajab gelin amwaaluhum maalkoodu wa awlaaduhum iyo awlaadoodu inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu rabaa an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa yani maalkooda iyo awlaadooda wuxuu ku cadaabaya bihada wax noolna maalkii inamaa yuriidu allah ilaahay wuxuu rabaa an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa maalkooda iyo awlaadooda fi dunya adduunyada dhexdeeda watazahaqa iyo inay baxdo anfusuhum nafahoodu inay baxaan oo arwaaxdoodu marka ay dhintaan yani walxaal hum iyagu kaafiruuna markaa ay gaala ay yihiin. wanagii marka aayaddii horan ku tilmaanay yani ilaahay cadaabka uu ku cadaabayo adduunyada inay tahay in ilmahooda markaas lagu cadaabayo.
laakiin aayaddii hore walaabaa ku jirta halkan marka way ka duwantahay aayaddani. alla wuxuu leeyahy waidaa unzilat marka ay soo degto suuratun suurad an aaminuu oo le markaa suuraddu rumeeya bilaahi alleh wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa miciisa jihaadka ilaahay gala ista'danaka waidaa unzilat marka lasoo dejiyo suuratun suurad an aaminuu suuradaasoo leh rumeeya bilaahi alleh wajaahiduu oo ku jihaada يعني مع رسول الله رسولك وجاهدوا جهادا أو جهاد كقيب قلا مع رسول الله رسولك معيسى لجهاد وصفكي سكون جهادا استأذنك وحا إذن كويديسا أولو الطول منهم كوود هودن كأه إي وحا وين دقالها له وقالوا وحا يراهدين درنا ندا نكون أو نغتك نكون آنهانو مع القاعدين كوا حري أن مركز aan ka mid noqon. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay raduu waxay raalli ku noqdeen bian yakuunuu inay ka mid ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa hadhay. raduu waxay raalli ku noqdeen kuwa munaafiqiintiihi bian yakuunuu inay ka mid noqdaan maca alkhawaalifi kuwa hadhay. watubica waxaa la awday oo la shaabadeeyey calaa quluubihim quluubtooda korkooda fahum iyagu laa yafqahuuna kuwa wax fahmaya maaha. yacni dulli bay doorteen rasuulku sala allahu calayh yacni in qofku uu hadho yacni wax qofka uu ka raali noqda maaha. rasuulka marka uu cali bin abi taalib ku yidhi madiino sii joog cali markaa wuxuu rasuulka ilaahay ma dumarkii caruurtaada iga tegay markaa rasuulku waa kii ugu jawaabayay miyaanad raalli ku noqonayn min mansilati haaruun muusa sida uu mansilata haaruun cinda muusa manziladii sida uu ku ahaa muuse haaruun yacni waa kii kaga tegay markaa reer bani israa'iil markuu ilaahay la soo ballamayay oo ilaahay la kulmayay hasmeynad booskaa raalli ku noqonayn. marka waa sharaf isaga amar rasuulka uu siiye weeyaan. laakiin sida caadiga ah in raggu ay jihaadka u baxaan wuxuu alle raddu waxay raalli ku noqdeen kuwa munaafiqiintii bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa hadhay oo yacni marka asxaabul acdaarka ah yacni kuwa marka cudur daar kale ama oday gaboobay ama ciyaalan dagaalami karin ama dumar iyo wixii la halmaala. watubica waxaa la awday oo la shaabadeeyey calaa quluubihim quluubtooda korkooda fahum iyagu laa yafqahuuna kuwa wax fahmaya maaha. laakin irasuulu yacni kuwa maslaxadooda fahmaya maaha. hadday raacaan waxay helayaan labada wanaagga ban midooda ama waxay helayaan khaniimo ama shuhada ay noqonay. alla wuxuu leeyahy laakin irasuulu hase yeeshee rasuulku ama laakiin rasuulku iyo waladiina kuwa aamanuu iimaanka laakin irasuulu hase yeeshee rasuulku ama rasuulu rasuulkuse laakin irasuulu rasuulkuse iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu rasuulka maciisa jaahaduu waxay ku dagaalameen biamwaalihim maalkooda wa anfusihim iyo naftooda. يعني halkan وأما الرسول والمؤمنون يعني لكن الرسول رسولك سي والذين يكوا آمنوا إيمان رميي معه رسولك معيسى جاهدوا waxay ku dagaalameen بأموالهم maalkooda وأنفسهم iyo nafahooda وأولئك kuwaasina lahum iyagu waxa u sugnaaday leeyihiin alkhayraatu khayr fara badan bay leeyihiin buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. adduunyana manaafic bay helayaan oo khanaa'im bay helayaan aakhirana insha allahu tacaala janno ayay heli doonaan. وأولئك كواس هم يجوا المفلحون وكل ليباني. الله وحول يقوليستي أعد الله الله وحول دياري لهم إيجا جنات جنوين تجري أي درار من تحتها وستيدا الأنهار وبي أي دراريان خالدين إيجا كواري فيها جنوين كدحدودا ذلك كاسي الفوز العظيم وليبان وين بالله سبحانه وتعالى وفوز وين. الله وحول وجاء وحي مداء المعدرون وجاء وحي مدي المعذرون كوي عذر دارني من الأعراب وأعراب تأمرك أيضا لبا قول يكون فسر علماء قولوا وحي لين إن لا يراويان معذرين تاسوا كو مسلمين أها أباديها جوجو حوله ذي إلى شنيون أغين ومرك إيجو رسولك إيمان عذر دارنيا كون دمر واكو منافقين تي قول كلنا وحلي هاي سيدا كتاب كان المختصر أو قرية كل سؤالهان يعني kuwaasi yimiday waa kuwa markaas waa kuwii markaa nifaaq ahaa weyn labada markaa nifaaq lagu macnayo
marka haddaan taa dambe iska qaadano wajaa waxa yimid almucadiruuna kuwii cudurdaaranay min alacraabi oo acraabta ka mid ah liyudana lahum si loogu idin dalbo waqacada waxay fadhiisteen aladiina kuwa kadabuu llaha alla u beenta sheegay kadabuu llaha warasuulahu yacni kadabuu beenta sheegay u sheegay allah alle warasuulahu iyo rasuulkiisa alla wuxuu leeyahay sayusiibu aladiina kuwii waxa asiibi kafaruu gaaloobay ee minhum iyaa ka mid a cadaabun cadaab aliima u xanuujiya alla wuxuu leeyahay laysa cala aducafaai kuwa taagta daran ee ducafada ah walaa cala almardaa laysa cala aducafaai ma ahaanin kuwa taagta daran ee ducafada ah walaa cala almardaa iyo kuwa bukaan socodkaana ma ahaanin korkooda walaa cala aladiina kuwiina korkooda ma ahaanin laa yajiduuna aanan helaynin maa yunfiquuna wax ay bixiyaan yacni sahay ay bixiyaan oo ay ku baxaan markaas dagaalka xarajun dembi korkooda ma ahaanin idaa nasaxuu markay u nasteexeeyaan lilaahi alle ay daacad u noqdaan warasuulihi iyo rasuulkiisa maa cala almuxsiniina kuwa wanaag falayaasha ee muxsiniinta korkooda ma ahaanin min sabiilin jid lagu eedeeyo wallaahu allana ghafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariista walaa cala aladiina kuwiina korkooda ma ahaanin dembi idaa maa atowka marka ay kuu yimaadaan rasuul allow litaxmilahum si aad ugu xambaarto qulta aad ku tidhi laa ajidu ma helayo maa axmilukum gaadiid aan idinku xambaaro calayhi korkiisa tawallow jeestay wa acyunuhum indhahooduna tafiidu ay ka daadanayso ay ka shubmayso min addamci ilmo xasanan yacni ay ilin ka daadanayso xasanan murugo darteed allaa yajiduu inay waayeen maa yunfiquuna waxay bixiyaan oo sahay gaadiid ay raacaan marka ay dagaalka ay ku galaan aayaadkani waxay tilmaamayaan dadka markaas aan eedeysnayn aayad dambana insha Allah darsiga dambe dadka eedeysanna aayadda dambe aad tilmaami doonta alla wuxuu leeyahay kuwa ducafada ee taagta daran sida dadka da'da waaweyn qofka indhoolaha ah naafada caruurta dumarka kuwaasoo dhan dembi ma saarna marka kuwaas waa kuwo shay laazim ah weeyaan qofka gaboobay lama filayo inuu da' yaraado qofka indhoolaha sidoo kale qofka naafada ah yacni saasoo kale iyo qolada kale oo aynan laazim ku ahayno yacni waxa weeye qofka xanuunsanaya sanadka marka qayb kale culimada marka ay waa shay marka caarid ah laazim iyo caarid boo kale alla wuxuu leeyahay kuwa ducafada ah dembi korkooda ma ahaanin qofka xanuunsanayana wax dembi korkiisa maan hadduu ka hadho jihaadka kuwa aan raba inay baxaan laakiin waxay ku baxaan gaadiid ay raacaan iyo sahay aan haysanna kuwaasina dembi korkooda maaha marka ilaahay shardi baa ku xidhan ay ilaahay u nasteexeen iyo rasuulkiisa kuwa wanaag ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasi kuwa samafalayaasha ah jid lagu eedeeya korkooda maaha wuxuu kaloo alla leeyahay rasuulkii allow kuwa kalena dembi korkooda maaha marka ay adiga kuu yimaadiin ay ku weydiistaan rasuulka ilaahay oo gaadiid ma haysano iyo hub iyo sahayn ku baxda ma haysane raacna ee adigu wax nasii aan ku baxno aad ku tiri ma hayo waxaan idinku xambaaro oo gaadiid aan saaro ma hayo markaasay jeesteen iyagoo aada u murugaysan maxay u heli waayeen wax marka ay saxay maxay u heli waayeen walaalahay waad arkaysiin yacni nimanna iyagoo wax haysta oo aqniya aayadama noo sheegi doona ayay cudur daaranayaan qolana markii ay waayeen wax la saaro saa ogeed rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam madiina waxa ka nimid rag waadi haddaan marnay inala socda dariiq haddaan marna buur haddaan jirno wax walba ajirkood markaan la socdo marka insha Allah ta'ala ma darsiga dambe ayaynu ku sharxi doonaa barakallahu fiikum jazakumullahu